iyadoo maalintii afraad ay si habsami looga socoto diiwaangelinta doorashooyinka guud ahaan gobolka Sool ayaa maanta guddiga doorashooyinka qaranku kormeer ku sameeyeen deegaano ay ka mid yihiin Gambare, Ari Cadeeye oo degmada Caynaba iyo Laascaanood ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaana ugu horeyntii halkaasi dadka kala hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta komishanka qaranka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan waxaan ku suganahay Gambaro oo marka wadada la raacayo goobta ugu bariyaysa goobaha komishanka doorashooyinka ay ka howlgalayaan sanaaduqdiisa diiwaangelinta codbixiyayaasha sida darkaysan si qurux sameeyay oo socota waana sida ay noo sheegeen hawlwadeenada komishanka waxay noo sheegeen hawsha si hufan tan iyo markii ay yimaadeen inay ugu socoto insha Allah biidina kariim waxaan ku jeedinaa inay sida ay ugu dhamaato وصباح جمعة عن قصة كنا جمرة سا كمشي على الساحة كشيء وحكى صعوبات دورشة ديوانجلتي عالبحياش أو قبتي وبريسي مركان على طريق الله حن مركا قبل كسيب أفسامي وقصة صلي شيء وأنا جا صباح جمعة كله إنه ورقي كشرة وحول اللي بوي هاي سيئين محنواتينا مثلاً تناس في عمل ديوانجلنيان dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa kormeer wacyigelin ku gaaray deegaanada Guumaysiye iyo Shuluux oo dhamaantood hoos yimaada gobolka Sool waxaana wasiirku shacabka deegaanadaasi ku booriyay inay qaataan kaarka codeynta isla markaasna ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda deegaankooda maanta waxaanu halkan idinku nimid arrimaha aad ka warhaysaan oo ah arrinta socotay ee diiwaangelinta ayaa ugu muhiimsan annagoo og in waxyaalo badan oo kale oo ay ahayd in dawladda iyo xukuumadda iyo إلى إذا كلاه هذا الشوك وأدون سنة إذا كلاه هذا طبعاً إنسان أما إذا كنت جران واحد أقومهم سن ما تعلم هالكرونمي واحد سيدي أنه إذا كبر الرجال هين إذا كل الرجال هين أنه صوت صارين هين أهمية دائرة هاي ديوان جرينتو يو كانت اللعبة هي قيمة اللعبة هي نعتقد قاعدتها سيدا درادد waxaanu inagoo tafaasiisheeda sii gali doona oo aynu ka wada hadli doono waxaanu idinku baraarujinayna oo guud ahaan aanu marka hore idin sheegayna in diiwaangelintu ay tahay mid maanta laga maarmaan ah in la galo oo laga qayb qaato oo waxa la leeyahay wixii dib u dhac ahaa iyo dhibaato ahaa ee la soo maray laga soo kabto in miisaanka la leeyahay iyo awoodda la leeyahay iyo magaca dadkan lagu soo saaro سمير سعيد بلا تلفزيون كما ذهب بنان بولشو لاصعانود